wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka qayb galay madasha nabadda iyo horumarka ee Stockholm. banaanbaxyo loogu soo horjeedo go'aankii wasaaradda waxbarashada ee dalka oo wali ka sii socda Soomaaliya. wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Bare oo sheegay inuu la yaabay wixii uu ku soo arkay wadooyinka magaalada Muqdisho. Al-Shabaab oo geedo ku afduubtay shaqaale samafale. deena uu sheegay iskaashiga maamul goboleedyada inuusan ahayn mid siyaasadaysan. ra'iisul wasaaraha Ciraaq oo kulamo gaar ah u jooga dalka Turkiga. Israa'iil oo xirtay sawir ka tirsan wakaalada wararka ee Anadolu. Pentagon oo Iran ku eedeeyay burburinta doomaha ee badda Khaliijka. Mareykanka oo fiisaha u diiday muwaadiniinta ka soo jeeda Nigeria. Man City oo isku diyaarinaysa koobka FA Cup-ka finalka. Michael oo lagu soo daray xulka qaranka Nigeria. Griezmann oo isaga tagaya Atletico de Madrid.